لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلهي بقى مهدله waxaan marka hore u mahadnaqayaa Ilaahay iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta ii magacaabay xil kale inaan ka qabto gobolka Gabiley igana bedelay maanta Burco aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan in yar dib ugu noqonayaa horta ina muraad kaftakiisa soo runo anu qolada daayada diidamihi qolada daayada diidamihi ilaahay bay xil qariyo dawaan dhalinyarada waan ku tirsanay laakiin taasina intaasaan kaga tegayaa wasiirka wasaaradda biyaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xildhibaanada heer qaran xildhibaanada heer degmo barasaabada kale dhigayga ah ee martida halka noogu ah odayaasha uqaasha haweenweynaha gobolka Togdheer baada saxaafadda salaadiinta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam dabadeed maalintii halkan xilka laygu wareejinayay waxaan u malaynayaa intiina badani goobjoog baa ahayd maalin dhaweed waxaan idhi xamse anuu beenu sheegi maaye xamsow hawl adag baa ku taala Burco hawl adag baa taala waxa laga soo baxay campaign waxa laga soo baxay xusbiyo waxa laga soo baxay kala qobqobnaantii oo weli ka jirta gobolka waxa taala waxa socon waayay sanad iyo barkii u dambeeyay hawlii qaranka ee horumarineed ee gobolka ka socday dhammaantood way iswada taageen haddaan beekaaga sheego waxa taagan mashruucii imika aanu soo marnay oo aad saaka naga yara habsaantay oo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimiba halka joogaan oo dabdamiskiya oo magaaladu aad iyo aad ay ugu baahan tahay waxa taagan jeelkii baa taagan oo ballantiisana aynu ogeyn halkii uu inagala ballamayay madaxweynuhu waxa taagan dhakhtarkii oo kaliya ayaa dhismihiisii la bilaabay haweenka iyo carruurta ee ay inoogu deeqeen imaaraadka carabtu waxa taagan waxa la garoonkii kubadda wax allaalo wixii qandaraas gobolka laga qaatay wax hal shay baa ka dhaqaaqay oo dhakhtarkaasa kulligood waxay kaaga baahan yihiin dabagal iyo la xisaabtan ayay kaaga baahan yihiin sababtu may ahayn jileecaanu ka jilecnaye waxa la galay doorashooyinkii oo runtii labada inan ee Burco jooga ee labada shaadhe kala kaankaasi taama saddexda cusbi midba shaadh gashana inanka yare kale wuxuu u qaatay inuu isaga laga badiyay madaxweynayaashan iyo sheekadan Hargeysa taala iyo waxaasi uma yaalaan waa kuwa odayaashii waxa weeyaan nin baa imika halkaa wuxuu ka yidhi bari iyo galbeed oo kaliya runtii maaha hawl adag baa Burco taala hawsha adag waxaan filayaa reer Burco inay maanta u bisha adiga laftigaagana maanta xalka Burco lagu keenay siyaasaddu kulba xal bay maraysaa xalka Burco iyo jiritaanka Burco oo aan raalli kaga ahay anigoo weli lama arag nin kursigiisa ku sayaxo yiraahdo halkan la iga qaado miyay war hore u dhici jirtay waa maya nidaala wal maanta aniga maalintaydii maahay waxa loo baahan yahay xalkii Burco inoogu ahaan lahayd waxaan horta runtii idiin sheegayaa reer Burco haddaa ogtiin iyo haddii kaleba waxa weeyaan Burco waxay u baahan tahay maanta waji cusub bay u baahan tahay taariikh cusub bay u baahan tahay intaynu xusbiyada tiifiyada isu taagnayd ee mikrofoonada iska maagaysay runtii xal maaha waxay u baahan tahay xal cusub bay u baahan tahay taa iyada abuu ku yimi ha lagula shaqeeyo baan leeyahay xukuumadduna si fiican bay ugu soo garatay waxa weeyaan Burco waa magaaladeennii xumaan adiguna lama jeclid anna lamaan jeclayn laakiin de waxyaabo badan oo duruufuhu keenayaan ayaa iska badnaa waxa halkan ku yaala ee kale waxa halkan ku yaala in dabeecii maamul uu weli taagan yahay maalin dhaweyto rag badan oo odayaal ay la fadhiyeen wuxuun baan ku wareelay rasaas suuqa ka dhacaysa taliya qaybtaan la soo hadlay waxa weeyaan
sidaad magaalada gacanta ugu qaban lahayd aadna waanu uga cabanaynaa awaamirta Hargeysa ka soo baxaysa ee aan maamulka gobolka ogeyn hadday taasi kugu socotana waxba qaban kari maysid xaqiiqan ku sheegaya waxa weeyaan magaalada adiga madax ka adaa taliya qaybta xukuma adaa maayarka xukuma adaa isduwayaasha xukuma ninku diimi karaana ma jiro halkaana waan kala shaqeynaya waxaad ka fooriyaadeero xaqiiqadu waa intaas bara saabay leedahay magaaladu bara saabaa xukuma bara saabaa xukuma jeclaysta ama nacbaysta waxa weeyaan bara saabku wuxuu wakiil ka yahay ee uu calanka u sitaa wuxuu wakiil ka yahay madaxweynaha balaa in badan baan garanaynin shaqadiisa waxay ku taalaa xeer 23 distoorka dalka u yaala iyo sharcigeena ayay ku qeexan tahay isuduwaha la bedelayo waa inuu talo ka bixiyaa ka shaqadiisa ka soo bixi waaya dawladaha hoose dhammaantood ee uu gobolku ka kooban yahay cid uga sarreyso gobolka bara saabka ma jirto ninkii u haysta in meelo kale laga xukumi jiray waxa weeyaan gobolku waa gobol uu madax bannaan yahay waxaana wakiil madaxweynaha uga bara saabka uga hal lagula shaqeeyo baan leeyahay waxa laga yaabaa dad badan inaan hadalkaasi jeclaysan laakiin xaqiiqadu waa caynka xaqiiqada jirta waa caynka waxa kale ku sheegayaa gudoomiye halkan muddada doorashada dabadeedii waxa gobolka ku badatay deegaameyn cusub shaqo badan baanu ka qabanay hawshina way socotaa in laga qabto oo halkii hawsha ka sii wadana hadda halkan bay daaqi waraaqi ugu keeneen waxa weeyaan hayr tuulayaasha ku dhaqmi waaya iyo mid walba awood baad u leedahay inaad joojiso iyo deegaameynta xaaraanta ee dhuldaaqsimeedkii laga samaynayo deegaameynta cusub waa hawl adag oo iyaduna ku taala waxa kale aan iyadana inta kugu daraya waxa magaalada yaala 35 fulinood baa taala 35 kaasi fulinood qaarkood dad baa hore ugu dhintay waxa ka mid ah qaar 17 sanadood socdo maalin walba aniga ay TV-ga iga caayaan oo saakada uu iga caayay wuxuu iga xaq baad u leedahay inaad caydeen waan ogolahay waxa xaqiiqada sheegay 17 sanadood kiiska socday ee saddex qaybood soo dhaqaajiyay ee qayb yar harsatay waa ka ugu fudud anu maalin hore bal qaaday inaan been sheegay waa sheegay waxa lagaaga baahan yahay 35 kaasi fulinood oo inta halka joogtay in badan imika kiiskii leeday kala sii badan bara saabka kala ku wareejinayso qaarkood waxa kaga tagay bara saabkeena oo uu fadhiyaa haddii runta laga xanaaqayaan uu runta u sheegayaa bara saabka 35 fulinood baa yaala 35 ka fulinoodna aad iyo aad uga fiirso ha ku degdegin qaarkood oo lagu qarin doono ayaa jira waxyaabo badan oo aan anu reer burcaan ah cidayga ma sheegan karto waliba aanu miyii ku ilaabta loogu garaaci jiray ee loola jiray halkan waa bro waxa ku sheegaya xamsow nin waliba wuxuu isaga ka dhigayaa in uu isagu sax yahay fulinahaasi hubsiinadeeda iyo la tashigeeda ayay leeyihiin waadaysataa ciidan ku darban ciidanka booliiska oo runtii rag odayaal hogaaminayaan uu ka yahay taliyaha qaybtu oo aad iyo aad runtii kula shaqayn doona fulinahaasi aad iyo aad hal isaga hubsado hatta kuwa dawladda hoose fulinayso hatta waa in lagu soo sheega aad ogaata way xaq baad u leedahay waxa kale intaasi runtii aan waa soo gaabinayaa malaa dad badan baa ka cadhoonaya hadalladaasi xamsow shaqayari ma taalo burco shaqayari ma taalo hawl adag baa taala mee ka daya waxa intaa weeliyaa oo aan kaga tegayaa
maanta hadalka adaa le la ii taago maanta hadalka anigaa le waa sii sogootiyaya waxaan saan uga jeedaa hadallada aan leeyahay inay noqdaan qaar burco wax ka bedela burco waa magaalo wanaagsan waa magaaladeydii waan ku dhashay waan ku dhaqday waan ku guursaday waan ku noolahay imikadaa waa kaas odaygii aabbaha meel kale xamili waayo halkaasuu joogaa waxaan uga jeedaa qofka sidaa ahi marnaba xumaan lama jecla burco haddee rag baan hadalka maqmaqlaayay iyo xalayta qaar tiifiga taagnaa oo wax ku hadadlaayay kuwaasi waxaan leeyahay war burco horta marka hore umaynaan lahayn dhaqan umaynaan lahayn baryo xalayta kuwii hadlaayeen ahaa buulunguri buu naga dumiyey waar dullinimo barbaryadu waa dullinimo ilaahay xaggiisa ummadda kaga dhacda waar burco baryo iyo gacmo hoorsi dhaqanna umaynaan lahayn maantana waxaan leeyahay waar ciddii waxaa wanaag u haysato iska daaya waxa burco lagu qaataa xamso waan kuugu dardaarmayaa maanta 10,500 oo qoys ayaa raashin qaataa uma haystaan reer burco inay jirto laakiin waxaan aaminsanahay oo aan ogahay in aanay gaarin badidoodu dadkii xaqa u lahaa ee masaakiinta inaanay wada gaarin lama dafiri karo abaartii waxayna gaadhsiisay waa gobollada ugu xoog badnayd hadda waxa kuu soo socdaa dadkaa dubudejintoodii sidii aad dadkaa u gaadhsiin lahayd hawshaasi way kuu taallaa waxa noo suurtogeli waayey waxba ku dheeraan maayo waxba halkan laakiin gaar baan kaagala ballamayaa waa hayrtuulayaasha waa odayaasha magaalooyinka nin waliba wuxuu qorayaa inankiisii iyo baalkii meedna kii jilicsanaa ma gaadhayso raashin yar maaha qoysas yar maaha waxa kalaa sheegaya niman bahan oo magaaladan ka badhbadhleeya oo ka baana laba kelmadood baan ka odhanaya kuwa waxaan leeyahay cartan dhuurta kooraha markuu kor ugu laalayay cartan dhuurta kooraha wuxuu kor ugu laalayay garaad faarax dhay iyo karuur kala macaanaa misle kala qadhaadhaa kulankii goobeed ragow kibirka waa lagu kaa la ogaada waxaa kalaan intaan raacinaya oo aan ku soo gebagabaynayaa oon idin leeyahay rag waxaan ku maamulay aqaanamo ku maamuusi mase inaannu nahay tolnimana ay meerto noo tahay waxaan idin leeyahay burco dhaqan bay lahayd oo wanaag bay lahayd oo caadifad bay lahayd caadifadda wanaagga iyo waxqabadka iyo wada shaqaynta maamulka lala shaqaynayo aan baranno aan ku shaqayno waa salaamantiin maca salaama